العانكا dad badan wuxuu ku baashaalay inaba caadi ma wiilkan caanka la dhaho iyo sidoo kale saaxiibkiis Marcus waa wada shactira qosol miiran inaba caadi maaha live kooda waxa daawanayo kumanaan markay soo furtaan dadka waa wada qoslayaan Allah ta'ala barakatu maanta xayitubkayga marti ku ah maxaa ka qadactay ma ta gaash ku dhashay si Abu Jarbal inaba caadi maaha kama sheekeynayaan qabyaalad iyo waxyaabo kale kama sheekeynayaan aanimada la sheegay waxaan leemiyaa oo dadka isku gufuuriyaan balaa iskaga dhigaan kumanti ku dhig la ayaa haajireen maantana waa kuwaasa dadkii caanka ahay ay qadka ka toorayaan dadka ka sheekeeyay qabyaalada dadka waxyaabaha qurunka baafiya dadka caaya dadka ayaga caay jiray sidoo kale horana waa u sheegay haddana ku celinaa qabiil iyo qurunkiisa marabo fuustada rabtid matqaana iikan waa dhalinyaro iska qoslaya sidaan kuwada ayaan leeyahay sidoo kalena dhalinyarada kale ee rabto baraha bulshada inay ka gaarto heer sidaan oo kala sameeya agteega aan qabo haddii awa 9 saac albaabkan ka furaayo aniga maxaan ahay bismillah بومدان انت ايغو جرتو دفرا بومدان غورمن وطن مدغانا انا كانوا فيرسو قبلك فيرسو تو تشيرس ما كحبسوا قبدا dowladda hadda way ballan qaaday waxyaabaha qurunka ah ee qabyaalada kala soocidda ee baraha bulshada laga faafinayo mamnuuc no more waa in laga soo horjeestaa qaasatan baraha bulshada TikTok ayaa laga faafiyaa colaadaha iyo dhibaatada ka jirto dalkeena hooyo marka dhalinyaro ha ka qayb qaadanina sidaan sameeysta waxaad ka dheefaysiin sidoo kalena qarashaadna waa ka helaysiin waxaan leeyahay keep going caanka iyo sidoo kale dhalinyarada ku daawata way ku taageeraan saas kuwad ha isbedelin adiga saaxiibka Marcusna iswata majaajilaha wada waxyaabo badan sameeya heerka gaara sidoo kalena dadka ka qosliya